soomaaliduna dee waa iska qoys keliya nahay sooma war soomahin de haddaan isku abtirsanay imika kulligeen waxaa laga yaaba odaga 13 ama awowga 14 baan iskugu imanaynaa maba kala dheerinba markaasaa ilaahay jala wacala dad isku luqa ayaa ilaahay naga dhigay oo isku caqiide ah oo isku diina oo isku maaragtaan luqa keliya ku wada hadlaya ilaahay naga dhigay wallahi nicmada ilaahay uu na siiyo waa inaan qadarino waa ilaahay ugu mahadino وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا بالنبي يقولي وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما هذا دون إلى النقطة مسلم كمن وحن نفت هذا لجع شعيب النبي يقولي ذاتك كلام لجع له إن إسلام لماذا أي لما يصير أنت هذا دون يسد وحن نفت هذا لجع شعيب ذاتك كلام لجع له وأنا نفت إذا محل لجع له نبض لجع له ذاتك نبض لجع له أنا نفت إذا وحن لجع له جنة الله جعلها ذاتك جنة الله جعله أنا نفتيد وحى الله جعلها بركة الله جعلها ذاتك بركة الله جعله أنا نفتيد وحى الله جعلها شرف يقول بالله جعلها ذاتك قولش الله جعله نفتيد وحى الله جعلها ذاتك ويني أنيق وناق السمايان أدقنا ذاتك وناق السماء بان الله يشيغ مربي أدقنا ذاتك بينها وشيغن بلانت إن لك أقبح مربتد أدقنا ذاتك بلانتها كأقبحن dadku inay ku dhibaateeyeen ma rabtid adiguna ummadda ha dhibin in lagu dulmo ma rabtid adiguna ummadda ha dulmin in ballanta lagaaga baxa ma rabtid adiguna ballanta ha kaga bixin atadruuna man ilmuflis qofka cayda miyaa taqaanaan buu rasuulku yidhi saxaabadu waxay idhaahdeen cayd annaku waxaan u naqaanaa qofka diinaar iyo dirham iyo mataac aan waxba haysan kaasaan cayd u naqaanaa bay saxaabadu yidhahdeen markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka caydu waxa weeyaan waa qof maalinka qiyaamaha salaadii buu la imanayaa soonkii buu la imanayaa zakadii buu la imanayaa xajkii buu la imanayaa laakiin dad badan baa banka qiyaamo soo horjoogsan doona dadkaasi isagay markaa eed ka sheeganayaan mid uu dilay mid xoolihiisii buu dhacay mid uu garaacay mid dhiig buu ka daadiyey mid uu xantay markaasaa ilaahay odhanayaa khayrka uu isagu soo shaqaystay ka qaadoo dadka u qaybiyo jannada ku geliya waa la dhaqaajinayaa intii hore in kale haddana soo hadhi doonta buu nabigu yidhi markaasaa la odhan doonaa yaa rabbi dad kalea weliba soo hadhay oo addoonka eed bay ku sheeganayaan eed bay ka sheeganayaan markaasuu ilaahay odhan doonaa dunuubta ay soo shaqaysteen ka soo qaada iyakoo isaga madaxa u saara deedna naarta ku tuuraa la odhan doonaa buu rasuulku yidhi muflis waa kaas qofka caydhi waa kaas waa qofka khayrkii uu soo shaqaystuu ku soo tabcay dad kale jannada ay ku galeen dunuubtii dad kale ay soo shaqaysteenna isagu naarta ku galay weeya kaasaa muflisa buu rasuulku yidhi lidaalika inaan dadka khayrka la jeclaanaa inaka diinteennaa ku badbaadaysa camalkeennaa ku badbaadaya ummadda haddaad waxtar u yeelanaynin ood ixsaan u samaynaynin ummadda dhibtaada ka hayso in lam tanfacuhu falaa taduruhu wain lam tamdaxuhu falaa tadumuhu wain tufrixuhu falaa tugimuhu yaxya bnu macaad baa odhan jiray qofka muslimka ee walaalkaaya haddaad waxtar u yeelanaynin bal ha dhibin sifaadka dabaqalooca ha yeelan alcaqrab sifaat alcaqrab iska ilaali caqrabka sifadiisa ma taqaanaa wadiibgiisa soo taagay dhinaca jaxaas baa yimid jaxaas waa timsaax jaxaaskii baa afkiisii buu ka laabay deedna waxaa ku yihi soo kor ilay dabaqaloocu webiga kama tallaabi karayo ama jaxaasku berigana uu baxaa webigana uu ku dhex nool yahay dushiisiibuu fuulay webigii markuu jaxaaskii markuu webiga bartamihiisa uu marinayo timsaaxii caqrabkii baa qaninay baa lina uu ku dhiftay markaasuu sidaa usoo igu yidhi maanuu webiga kaa tallaabinayda qaninaysaa buu ka yidhi markaasuu yihi sidaa maahayna si kale ma aqaana buu yihi anigu ma cindii ilaa hada buu yihi wax kale maba hayo buu yihi sunkaabaan wadada la fadhiyaa ciddii soo martaba ka dhaf waan ku dhiftaa waa shaqadayda bui waana wadiifadayda buu yihi marka dadka qaar hadday sidaa noqdaan ka warrama maqaayadan hadduu la fadhiista qabyaalad iyo bolotig
wixii wadankeenu 30 sano ka hor uu ku dumay hadduu maqaayada kaga sheekeynayo social media galiid ka warrama halkii la oran lahaa ilaahu wadankayga nabad nooga dhig ilaahu madax khayr qabta noo keen ilaahu amniga noo ziyaadi ilaahu muslimiinta dalkayga ku nool qulubtooda mide oo taladooda mide oo makriga gaalada inagu socdo ilaahu naga qabo halkii la oran lahaa ee ummadda loo ducayn lahaa hadan ummadda isku dhaweeyana aad ku hadli lahayd haddaad maqaayada la fadhiisatid ka waran reer hebel maanta waa inay madaxtinimada u soo baxaan waa caqrab hada sifaatu lcaqrab